السلام عليكم أصحابته وردقدقة مرايكنك oo u muuqda inuu galayo dagaalka Israa'iil iyo Iiraan ka dhaxeeya oo Israa'iil uu la safanayo madaxweyne Trump ayaa 30 daqiiqo ka hor bartiisa Truth Social-ka waxa uu ku soo qoray qof kasta oo caasimada wadanka Iiraan ee Tehran jooga waa inuu isaga baxaa arrintaasi ma waxay u muuqataa in Mareykanku dagaalkii si toos ah uu galayo maadaama Israa'iil ay ugu baaqaysay in dagaalka uu soo galo Trump wuxuu bartiisa Truth Social daqiiqada ka hor 30 daqiiqo ka hor uu ku soo qoray Iiraan waan u sheegay inay heshiiska qaataan ayay ahayd laakiin waa ay diideen alla maxaa ceeb ah maxaa nolosha bini'aadamka lagu ciyaaraya marnaba ma ogolaanayno in Iiraan hub nuclear ah ay yeelato waan ku celceliyay waana ku celcelinaya ayuu yiri qof kastana waa inuu caasimada wadanka Iiraan ee Tehran isaga baxaa ayuu ku soo gabagabeeyay haddaba arrintaasi ma waxay u dhigantaa Mareykanku inuu si toos ah dagaalka u galayo Mareykanku marka uu dagaal galayo waa in Congress-ka Mareykanka ay meel mariyaan xitaa waxa jiray xubno ka tirsan Congress-ka Mareykanka oo maanta soo bandhigay sharci ah in ogolaasho uu Congress-ka ka helo Mareykanka haddii madaxweyne Trump uu doonayo inuu Israa'iil la safto oo dagaalkana uu galo marka hadalka Trump hadda sidaas ayuu u muuqdaa maadaama uu leeyahay qof kasta oo caasimada wadanka Tehran ku nool ee Iiraan waa inuu isaga baxaa hadalkaasi muxuu u dhigmaa macaga jugleynba ma dagaalku Mareykanku ka qayb galaya waa inuu ogaan doonaa laakiin ninkii Trump ahaa qoraalkaasi ayuu bartiisa Truth Social-ka 30 daqiiqo ka hor uu ku soo qoray waa xaaladdu waa bariga dhexe ma maqli jirtay xaaladdu bariga dhexe waa la isla dhaafay waxaan ognahay saddexdii habeen ee la soo dhaafay in Iiraan iyo Israa'iil ba ay istuqaynayeen oo mid waliba duqayna kala duwan oo midka kale u geysanayay oo qasaare fara badan labada dhinacba uu jiro laakiin Iiraan waa ay calaacalayso wadamada reer galbeedka oo Mareykanka iyo Ingiriis ku jira ay waxay dhahayeen hawshan way dhaaftay macnaha way naga tan badatay bal gacan hana la siiyo burburka ayaa la arkayay dhaawacyada iyo dhimashada ayaa la arkayay marka bal Trump hadalkiisu muxuu noqon karaa oo leeyahay caasimada Tehran ee Iiraan qof kasta oo jooga waa inuu degdeg uga baxaa immediately yiri waliba marka xaaladdu waa meel xun bay maraysaa waa in arki doonaa waxyaabaha ka soo kordho laakiin ninkii Trump qoraalkaasi ayuu bartiisa Truth Social 30 daqiiqo ka hor ku soo qoray haddii waxyaabo kale ay ka soo kordhaan oo dagaalkan Iiraanna waxay sheegtay sidoo kale in gantaalo cusub oo aan weli hore loo arkin ay isticmaali doonto maanta waa TTV-goodii la duqeeyay iyaduna waxay sheegtay in haddana argoosan doonto marka waa in arki doonaa waxyaabaha soo kordho laakiin ninkii Trump qoraalkaasi ayuu bartiisa Truth Social-ka daqiiqada ka hor uu ku soo qoray